بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد meeshan waxaan rabaa hal kaliya inaan ka soo diro horta ummadda Soomaaliyeed dhammaan waan salaamayaa. magacay waa Boqor Cabdi Axmed Cali Boqorka Beelaha Hawiye. waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ma rabo qof inaan u gafo, qof inaan caayana ma rabo. waxaan rabaa stako أنا بقولك وياه كوفر قلبي وحنا استكأ وأنا ومضى الصوماليات لما أنتوا الملك سيجوبتوا وفه وياه وإنه سوى ما سوا أما مرعى منه نسقول عين وحنا الأوجي هدول كأن دجنا بقولك بس عشان يشان لقارها كسر بح قبل خشب الله غوسة إنه ليه بيش أنا بقولك كأحي هوينها كوفر قلبي لفت الجرين وحنا ليه أنا وحنا لنا مدهوينا كحجين waxaan leenahay wasiirro badan xildhibaanaan ku leenahay gobol dhan baanu dhaqaalihiisa haynaa. war allaha aad muslim tihiin oo lihiin alla yahay ama qolo walba huba waxeedu ha ku filaadeen oo qolo walba waxeedu ha ku filaadeen oo canshuurtooda iyo maaragtay gaadiidkooda iyo xoolahooda ha ku filaadeen. way Soomaalidu dad wax isku darsan aan maqlay waa foowoole amargidi meeshan digime waan laga suulaa. war annaga ilaah baa dadka hawiye amba hiraab suuli kara laba shay dadka waxba kama dhaxeeyaan. qof walba huba waxeeda inay qaadato oo ay cashuurato oo ku filayeen waa wax la yaqaan. in dadka wax ka dhaxeeyaan waa wax la yaqaan. wixii ka dhaxeeya sax ma waxaan leeyahay haddaanan ogolaan wax qaybta aan leenahay oo annagu aan leenahay oo dadkaas ay leeyihiin oo qabiilka hawiye uu leeyahay oo dhaqaalaha kuleeyeen way waxaad ogtay shabeellaha hoose 95% gaadiidka mara khudradda beeraha xoolaha 95% dhaqaalaha inaan beesha hawiye ay u badan tahay leedahay. haddaad isku filantiin koonfur galbeedood leedahay waxa noo kala sooca adinkuna wixii noo haydin deeqeen annagana wax iyagana deeqay. haddii kalena dadka waxba ka dhaxeeya waa walaal baad sooca iska daaya. madaxweynaha dad qaatay madaxweyne ku xigeenan leenahay gudoomiye baarlamaan daqaatinkii kalaan leenahay xuquuq xisaabta annagu dadkaas uu leeyahay miiska iska saar. haddaad diidiin Soomaaliya u sheegaynaa dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u sheegaynaa wasiiradan u sheegaynaa ra'iisul wasaaraha u sheegaynaa maamul goboleedyada u sheegaynaa wax qayb hadii la diido annagu waxa aan leenahay annaga iskale waxa iyagu ay leeyihiin ayaga iskale. sida la ajligeed dawladda dhexe waxaan u sheegaynaa iyo dadka dalka mas'uulka ama waxna loo qaybso oo nimanka qaybtooda qaateen amba wax ayaga nooga leeyahay wuxuu kuma haysano kama rabno hadeeqan laakiin anaga wax ayaga waana deeqan ayagana wuxuu hadeeqan oo inaan waxaan isku darsano labada wixii ka dhaxeeyay Soomaalida loo bandhigay. anagu marka ka boqoraan waxaan leeyahay dadkaas taka ay soo gaartay waxaan leeyahay koonfur galbeed ha ogolaato xisaabta lagu leeyahay miiskana iska saaraan dadkana ha wada magaciisiyeen. hadday laakiin barnaamijyada kale iyo ay raadin dadka annaga dul cunayna idkii yeelida ma jiro. qofku wuxuu leeyahay cuna wax salaan cunimo hadii la yiraahdo mas'uul meeshan kuma ogolin wax oo mas'uuliyadkaaga ma ogolin waxaagana waa cunayna aqbal ma sax ma. waxaan leenahay waa maqlayna dhowr nin oo hadlaysay oo shalay darradii hadlaysay walaalayaal wixii cid ku haysata laba gobolada degantiin baaya bakola degantiin shabeellada wax ku degantiin cid idin diidaysa lama arko adinkuna baaya kol cid ku haysata lama laakiin xuquuqda dadkan xoolaha ay leeyihiin askarna u noqon maysiin mas'uulna u noqon maysiin haddaanan ogolaan wax qaybta ay leeyihiin haddaanan ogolaan maya waa la diiday mana aqbalayno mana qaado doono. qof hadda ka hor Soomaaliya qofka Soomaaliya gumaysataan lama bahayo dadku waa sinay waa walaalo wada dhashay aan wax isku darsano hadda diida waxa gaar leeyahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa Boqor Cabdi Axmed Cali. waxaan rabaa in la arko dadka arrinta in la sheer gareeyo la ogaado qof walba oo ay faraygeed ka dhigato. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.